Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kuna wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya oo ciidamo gaar ah u diraysa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wararkii ugu dambeeyay arrintaasi la xiriira ayaa daawan doontaan saaxiibayaal. ciidamo horay uu farmaajo u geeyay magaaladaasi oo howlgalo ka bilaabay halkaasi iyo cabsi xoogan oo soo wajahday dadka ku nool Beledweyne. Hirshabeellana waxa ay go'aan ka qaadatay doorashada golaha shacabka Soomaaliya ee ka imaanaya deegaanada maamulkaasi. Qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaal. Aynu ku bilownaa wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya ayaa diyaarinaysa ciidamo gaar ah oo ay u diraysa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ka taagan tahay xiisad xoogan. xubno ku dhow wasaaradda ayaa inoo sheegay in 570 askari oo ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa badbaado qaran loo diyaariyay in loo diro magaalada Beledweyne maalmaha soo socda. Ra'iisul Wasaare Roble iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur oo si weyn uga soo horjeeda maamulka Villa Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay doonayaan in doorashada ka dhacaysa Hirshabeelle gaar ahaan 25 kursi ee taala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay iyagu maamulkeeda kor ka qabsadaan isla markaana ay go'aanadeeda iyagu gacanta ku haystaan. waxaana si ay taasi ugu suurta gasho ay diyaariyeen ciidamo gaar ah oo la geeyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyadoo ay hadda ku sugan yihiin Gorgor iyo Haramcad oo farmaajo uu geeyay halkaasi, taas oo khubaradu ay sheegayaan in loo adeegsanayo boobka doorashada Beledweyne ka dhacaysa. Fahad Yaasiin agaasimiye hore ee Nisa oo si weyn u maamulo farmaajo ayaa ah musharax golaha shacabka ah, waxaana laga yaabaa in ay dagaal sababto doorashadiisu maadaama beesha Shiiqaal aysan rabin, wuxuuna tartan xoog leh uu kala kulmaya Faarax Sheekh Cabduqaadir oo ah siyaasi galaangal badan Shiiqaalna gacanta ku haysta. loolankii siyaasadeed ee Muqdisho ayaana hadda u wareegay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, halkaas oo shacabka ku nool ay mar kale wajihi karaan dagaallo ka dhaca magaalada, iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyay aanay xaaladda Beledweyne caga badan ku taagnayn. Generaal Xuud ayaa goorsii horeysay soo gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho, wuxuuna ahaa ninkii jabhadda ku haystay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaas oo dagaal xoogan la galay Hirshabeelle, waxaana la aaminsan yahay in kacdoonkaasi ay maalgelisay Villa Soomaaliya. Xuud ayaa sheegay in la dagaalami karo lana heshiin karo dalka dartiisna uu tanaasulay, waxaana la sheegayaa in Villa Soomaaliya ay doonayso inay isaga u adeegsato qabashada siyaasiyiinta xawaad leh oo ka aragtida duwan Villa Soomaaliya, isla markaana doorashada Beledweyne ay mar kale saameyn xoogan ku yeeshaan. xaaladda Beledweyne ayaan caga badan ku taagnayn, waxaana la filan karaa inuu dagaal dhiig badan ku daato uu ka dhici karo haddii labada ciidan ee farmaajo iyo Roble ay halkaasi isugu tagaan. dhinaca kale maamulka Hirshabeelle oo kol hore sheegay in ciidan iyo hub laga soo deji karin garoomada Hirshabeelle ayaa ku fashilmay dhaqangelinta go'aankaasi, waxaana Villa Soomaaliya ay ciidan hordhac u ah Fahad Yaasiin ka dejisay Beledweyne, kuwaas oo markaasi ahaa booliiska Haramcad iyo militariga gaarka ah ee Gorgor. ciidamadan ayaan ahayn ciidamo ku howlgala magaca rasmiga ah ee ciidanka xoogga dalka, waxaana markaasi loo adeegsadaa danaha gaarka ah ee Villa Soomaaliya ay ka leedahay maamul goboleedyada iyo in looga hortago dadka ka aragtida duwan farmaajo iyo kooxdiisa villada ku sugan ee waqtigii dastuuriga ah uu ka dhamaaday. inkastoo maamulka Hirshabeelle uusan wax saameyn ah ku lahayn doorashada ka dhacaysa maamulkaasi, ayaa haddana la aaminsan yahay in wax uun ay ka bedelnaan doonaan maamulada kale ee dalka, maadaama la sheegay in Hirshabeelle dadka ka soo jeeda uguna cadcad doorashooyinka ay u badan yihiin mucaarad aan ku aragti ahayn Villa Soomaaliya iyo maamulkeeda.